munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ujeedkeedu ahaa wacyigelinta autism-ka oo ay soo qabanqaabiyeen daryeel autism ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay hotelka Millennium ee ku yaala bartamaha magaalada London. Ururka daryeel autism waa urur wacyigelin u sameeya waalidiinta Soomaalida ee haysta carruurta qabta autism-ka waxaana ay xaruntooda ugu weyn ku taallaa magaalada Leicester iyagoo ka howlgala guud ahaan dalkani Britain. hase ahaatee waxa ay caawinaad u sameeyaan xarumo kale oo ka baxsan dalkani Britain ee ku yaala geeska Afrika. waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin xildhibaano ganacsato bulshada qaybaheeda kala duwan. wiilkii Soomaaliga ah ee baahida gaarka ah qabay ee ugu horreeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkani Britain galay xilligii David Cameron qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada London iyo nawaaxigeeda. waxaana munaasabadan sida weyn loo soo agaasimay qabsoomideeda lahaa shirkadda ganacsiga ee Dahabshiil Group oo u taagan markasta dhiirigelinta iyo horumarinta ummadda iyo shirkado kale oo ganacsi. waxaana halkaasi si kedis ah loogu soo bandhigay buug ay qortay Saamiye Cali oo ah aasaasaha daryeel autism isla markaana ah hooyo haysata wiil qaba autism-ka oo jira 22 sano iyadoo caawisa waalidiinta Soomaalida ee carruurtooda ay qabaan autism-ka. qaar ka mid ah dadkii madasha ka hadlay waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: haddii aan sukan sheego magacaygu waxaa la yidhahdaa Saamiye Maxamuud Cali, waxaan ahay the founder-ka oo daryeel autism. waxaan haystaa wiil severe autism lagu diagnose garay 2008, haddana wuxuu jiraa 22 sano. I am so proud of him. waana maxaan ku radaa maanta inuu ku nool yahay happy independent life. dhakhtarkan uu ku diagnose gareeyay severely autistic almost inuusan waxba qabsan karin. taasi waxay ku tusaysaa markaan information helno aan u istaagno carruurteena in aan wax badan mustaqbalkooda aan ka bedeli karno. mustaqbalka carruurteena iyo successka carruurteena wuxuu ku xiran yahay annaga waalid ahaan. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo kow mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo ka soo qayb gala arrintan. laba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii suurageliyay arrintan quruxda badan inay caawa ka dhacdo London oo ah Dahabshiil iyo Hormuud Foundation. aad iyo aad u mahadsantihiin iyo qaybo kale aan soo koobi karna hal deertaan oo boorka arki doontaan. magacaygu waa Haashim Ducaale, waxaan ahay maamulaha ka mid ah maamulayaasha daryeel autism. waxaan salaamayaa dhammaan dadka naga daawanaya shaashadda Hon Cable. runtii arrin aad u weyn bay ahayd caawa. waxaan uga mahad celinayaa marka ugu horeysa bahda saxaafadda ugu horeeya Hon Cable oo aad ugu taagan mar walba inuu bulshada gaarsiiyo wacyigelinta. waxaan ku faraxsanahay intaanoo Soomaaliya inay isku timid caawa oo laga hadlaayo arrintan autism-ka. autism-ka sidiisaba wuxuu leeyahay bisha dhammaadkeeda oo Mars iyo ugu horreynta Abriil baa laga hadlaa. maadaama uu noo soo gelaayo Ramadaan, ma aha inaan Ramadaanta dhexdiisa aan samayn karno isku imaansho. marka waxay ahayd weekendigii ugu dambeeyey ama isbuucii ugu dambeeyey intaanan la gelin Ramadaanka. marka waa mahadsantihiin. runtii waxaan la soo koobi karin waa mar walba inaad u taagan tihiin inaad caawisaan bini'aadamka oo aad gaarsiisaan waxyaabaha loo baahan yahay. wax badan baa macaawa meesha laga sheegay. muhiimadaan ka lahayn waxay ahayd in waalidiintu iyagu intay isu yimaadaan carruurta autism-ka haysta iyagu ay kala faa'iidaystaan. saa aragteen caawa waxaa lagu soo bandhigay buuggan oo Lifeline la yidhaahdo. Saamiye Cali baa qortay. waxay ku soo koobaysaa dhammaan khibraddeeda. taasina runtii waa arrin aad u muhiima. waxaana idin leeyahay intiina kale naga daawan doonta shaashadda mar walba carruurta autism-ka dadka haysta fadlan caawiya. waa mahadsantihiin. waxaa la yidhahdaa Cabdicasiis Carab. waxaan ka socdaa shirkadda Dahabshiil Group oo qaybteeda UK. waxaan ahay madaxa suuqgeynta iyo kobcinta ganacsiga qaybtan UK. caawa waxaan ku sugannahay Millennium Hotel Conference Roomkiisa kaasoo lagu qabanayo program aad iyo aad qiimo weyn ugu leh bulshada Soomaaliyeed, kaasoo ku saabsan sida loola tacaalo carruurta baahiyaha goonida qaba sida xanuunada autism-ka, epilepsiga, noocyadaasoo kala duwan. programkan waxaa sameynaya oo soo qabanqaabiyey daryeel autism waxaana maalgeliyey shirkadda Dahabshiil Group. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo barnaamijkan aadka u qurux badan ee loo sameeyey daryeel autism ay ka soo qayb qaateen bulsho badan oo UK ku dhaqan, khaasatan iskugu yimid xaafadan aan degannahay
Kensington and Chelsea sharaf ii ah anigoo ah councilor Kasim Ali Kasim Mohammed Ali oo ah deputy leader ama hogaamiye ku-xigeenka xaafadda Kensington and Chelsea ee Labourka ahna gudoomiyaha guryeynta iyo community-ga mar walba waxaa lagu casuumaa inaan ka qayb galo community-yaal badan meel isku tagaan xaafadahan kala duwan waa ogtiin dad kala diimaba kala duwan diinta muslimka diinta yuhuudda diinta maxaa la yidhaha xataa siiga diimo badan maantana waxaan ku faraxsanahay waa markii labaad oo ku soo laabto holkan aan kala soo qayb gala dad not only igu diina Soomaali diinteeda kaliya haysto ee walaalaha ee Soomaali muslimiina inaan kala qayb galo oo aan maaragtay aan farxad ii tahay dadka dhibaataysan ee u baahan in la caawiyo inay ka soo qayb galaan marka qaasatan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalaha ka soo qayb gala ee miidiyaha qaasatan maxaa la yiraahdaa Home Cable oo aan maaragtay leeyahay wax fiican aad qabateen saaxiibkay Cabdifatax iyo dhammaan khiyaarta la shaqeyso dhan Home Cable oo in badan ayagana ku tabarucay barnaamijyadan oo kale inay ka soo qayb qaataan. And I definitely think Samia and the work that she is doing is amazing, and I wish I knew Samia, and I wish I knew yourself when I first got the diagnosis. I wish I knew. So yeah, thank you so much. But communication is just as key. Because if you can't communicate as parents, you know, to your child about you understand where things might be going wrong for them, because sometimes the child won't know, then it's going to be far harder to overcome those potential meltdowns in future. And yet again, the way I used to do it, I can't say this will work for every child because that's not how autism works. About how children with autistics, how they really have an innovation. I think Hashim made a great example how his son remembered the navigation and remembered that Gloucester Road was here. Last time we looked into leadership, and we realized that when you think about leadership, the first thing that comes into mind after leadership is awareness. A couple of times, she gave me an advice and how to do and how to help my child and all of these. And to be honest, getting the information from the doctors who are professional all these years was like nothing. But when I got it from Samia, I felt like I was related to her. She is a mother who's been there. I'll give you an example. I'm wearing contact lenses right now, so that means I can't see properly. But society came together and they made the decision to create glasses and contact lenses. And so I'm wearing the contact lenses right now, right? And that's helping me to function well and to see things properly. But if contact lenses didn't exist or glasses didn't exist, I'd be disabled, yeah? So it's society's fault for not accommodating to the needs of those that have special needs. You don't need to like cast judgment so quickly because more time you really don't know what's going on. And I feel like that kind of applies to my studies as well because like you study because you put a lot of time into it. Like the more you work at something, the more time you put into something, you get a better picture. Thank you, Effie. Thank you, Effie. sharaf weyn ay ahayd inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha weyn oo lagu wacyigelinayo caruurta baahida gaarka ah qaba gaar ahaan lagu wacyigelinayo hooyooyinka runtii waxa la yiraahdaa canuga xaafad ayaa korisa maanta xaafadii oo dhan isku timid si caruurta baahida gaarka ah qabo loogu gargaaro looguna wacyigeliyo runtii markii qurbaha la joogo dhibaatadeeda waa iska badan tahay abwaan xadaraabi wuxuu yiri qurbaha marka joogto waa iswaayaysa adoo dhana iswaayay marka hadii aa hooyo tahayna waaba ka sii daran yahay oo cunug baahiyaha gaarka ah qabo marka maanta waxaan u nimid inaan la dareen wadaagno waalidiinta oo aan tusno inay kaligooda ahayn. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are having an amazing night so far. I am absolutely happy to be here with you guys. This charity does phenomenal work for people with disabilities. I am very proud to be involved 1 year before and I spoke through Zoom. Now let's be honest. No one can choose a disability and rely on people all their life.
wiilkaygana maantay soo maaragtay kasoo qayb galeen hadalkiisa iyo maaragtay inuu ummadiisa maaragtay wax la qaybsado walaalkay haashin aada ugu mahadcelinayaa iyo walaashay maaragtay nasoo marti qaadeen waa markii igu horeysaan communitykan imaado haashin North London uu noogu yimid buu gurigeena toos u soo raadiyay Cabdiraxmaan ilaa Soomaaliyana way isku arkeen intii aabba noolaa meeshaas ay ku kulmeen isku barteen marka aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxa ilaahay mahadiisa in maaragtay Cabdiraxmaan maanta uu dadkiisa ka mid yahay oo nin waxbarasho dhameystay jaamacad dhameystay yahay oo nin shaqaystay yahay maanta naftiisa uu shaqaysto family-ga dhan uu support gareeyo ilaahay wuxuu qadaray Cabdiraxmaan in uu noqday qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ee dhalinyaro ah baahi gaar ah qaba oo baabuurkiisa asagoo wata xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ee David Cameron la soo galiyay daahir uu la socday maalintaas uu garab taagnaa waxay ahayd wax wanaagsan ninkan kursiga ma hayn karo wuxuuna tusaale u yahay carruurta Soomaaliyeed ee baahida gaarka ah qabta inaana qarsanin halkaas jamaada fadhido u jeedaan ayada laftigeeda oo barnaamijka koran ka qabanay Hashim iyo walaashay iyo reerkiisa uga mahadcelinaa waxaan quruxda badan soo bandhigay waxaan rabaa inay idin mahadceliyo dadkii ka soo qayb galay anigoo ku hadlayo Hashim iyo xaaskiisa codkooda anigoo ku hadlay waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad u taageerteen markii programkan caawa halkan ka dhacay oo loogu adeegi doono carruurta dhulka ay ku dhibaataysan aniga codkaan ku leeyahay maadaama aan alfatarad dad u gargaara carruurta iyo dadkii hooyo dhulka ku dhibaataysan waxaan jeclaan lahaa wixii wanaag inaan la wadaagno wixii khayr inaan idin soo bandhigno insha Allah taala aad iyo aad u mahadsantihiin waqtiga dheer aad soo gasheen ilaahay ajir xasanaad ha idinka siiyo kuni ko jeer qof walbo caawa halkan waxa leeyahay bil khayr ayaa soo socoto ilaahay ma arkino ha nooga dhigo dhulkii hooyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo Cabdi Fitaax Ali Shirwac warbaahinta caalamiga Home Cable magaalada London